بسم الله الرحمن الرحيم أخياري سود هذا ما أنت ولا ليالو وحن إلا وذاقيا شكا عن إسلاي إن شاء الله درسي إيو موعدة أيا إنه وضع السجن ما أنت وحن تجينا الفلبين ير فلبين ولا شو وضعك الفلبين ولا كريس وحو كسجنا وضعك قدر هل كان أيو كشقي سنة وحن أشقينا شركة اللي هذا DHL International كاتقانا فلبين waa dad cajaa'ib ah oo reer galbeedkana meel bay ka shabahaan dadka muslimiinta iyo afrikaanka ina meel bay ka shabahaan oo dhanka qofku wuxuu ihtimaam siinayaa ehelkiisa iyo qaraabadiisa iyo hooyadiisa ku xiran yahay aabihiisa ku xiran yahay uu soo shaqo tagay waxaad arkaysaa asoo leh biilkii baan dirayaa dhankaas aad bay noogu dhow yihiin wiilkan asagii aabihiis halkan ka shaqaysan jireen aabihiis shaqada ka dhamaatay meel kale uu aaday hooyadiis oo waayeel ah ayuu biili jiray maalin dambe ayaa telefoon u yimid waxaa la yidhi hooyada stroke baa ku dhacay dhiig baa madaxa kaga furmay qalliin degdeg ay u baahan tahay waa inaad lacag soo dirtaa shirkadda uu shaqeynaya wuxuu yidhi lacag amaha isiiya oo dhowr bilood ah tartiibna iga jirta si aan hooyadii ugu daweyn way ka diideen waxaa kuma siinin saaxiibkiis oo isku fiicnaayeen ayuu la hadlay wuxuu yidhi niyow lacagtaas adigu bangiyada meesha ku yaal intaa tagtid iisoo amaha anigaa bixinaya waa yahay buu wiilkii lacagtii buu soo qaaday maamadii dhakhtar baa la geeyey waa la daweeyey waa ka booday ninkaana maalin kasta mishaarkiisa wuxuu u diraa ninka saaxiibkiisa ah waxaa dhacday dhibaatada adduunka dhan ku habsatay ee coronavirus ayaa yimid wiilkii Filibiin joogay ee lacagta deynta bangiga soo qaaday shaqada laga ceyriyay maanta shaqada laga ceyriyo bangiga wuxuu ka dalbanayaa lacagyo dhan in aad soo shubtid waxa la saaxiib ku jirnaa shaqada waa laga finishay waxaad lacagyo dhan waa inaad soo dirtaa ninkii saaxiibkiisu la hadlay wuxuu yidhi dee xabsi baan gelayahay lacagtan hooyada u qaaday ayaan xabsi u gelayahay lacag soo dir wuxuu yidhi intaan nool ahay xabsi ma gelaysid lacagta anaa soo diray isug uu baxay lacagihii shirkadda oo dadka alaabta ay dirdirayeen markay dhowr bilood markay lacag soo aruurto hal mar bay bankiga geeyeen mugti lacagihii uu soo dirdirayey uu aruurinayey ayuu inta qaaday wuxuu u xawilay Filibiin ninkii saaxiibkiisa ahaa u shubay bangiga lagu shubay ninkii sidii uu xabsiga kaga badbaaday asagii xisaab xirmada ku timid waa la ogaaday in lacagtii uu isticmaalay waa la weydiiyey ma lacagta maxaad ku samaysay wuxuu yidhi lacagta waxaan ku sameeyey soo ma garanaysaan inaan hooyaday aan idinka sheekay haa hooyaday lacag dayn baan u qaaday sidaasay wax u dhaceen ninkii saaxiibka waa xabsi gelayay arrintaas ay qabsatay halkaasaan ka bixiyey marka tartiib iga goosto oo lacagta aan kugu dhiibano aad saa u gashay asna shaqada laga ceyriyay 2 bilood oo qabteen waxaa leeyahay labadaas bilood haddaad lacag ku bixin weyso iyo bil ma aqaan waxay ahayd haddaad lacag ku bixin weyso xabsi baad galaysaa baa leeyahay shaqadani waa laga ceyriyay dunida waa duri karoora ah meel shaqa laga raadiyo xataa diyaarada ma jiraan caalamka oo dhan waa qab kii xaaladda ay ku xun tahay وصل هذا المركب قف بني آدم كا هدانو دين لهين حاضر جقم كي نقطة وحو صورتي أسقو أن العق هينين أسقو حبس قلي وحبس جويس هذا واحد يابو استوتصي وحسين النفط هنبكي بدل محسو أدوسين ورانا استمع بس كإصغار الجسد وصاب حي وحو دمعي إن وبناك أبحة كبعد أنت أن قاعن أوسن قادرين وحسين بل أنت هذا استدين حاجة بالمجال سو أرك بالبرام بو يمد كيو هو ذا قادني أيا تلفون كيسوا صداعي شركة دي أوكا شغين جري أيا واحد يمد من قدرها أو كاستمر كشركة ده كم ده لكن نكاس هاد إيجار وحولا معامل جري أما أوقات هو هلا خدمة أو سينجر كريس
شركة دو يمد أو جماعة أو نيكل أورنجري كريس مكاسالة كريس شقدي ولا عيريي شقدي وقتي ولا عير لما شقدي وقتي بعد موت مركز نمبر كيسية نمبر كبالسية نمبر كمركزي وتليفون وصقرع وركرس هاي حكيت مريسة هل كاس مري حالة النبوش كي وحول حد أنا وحربين أسدله كي عمرها من مقعس عمره اللي جرى في ليا قدري بوها ونحي وحرنيو هسدلين دين الإسلام كان كفكر مع سلام وسقتي markuu telefoon ku damiyay ayuu wuxuu xasuustay Cisaam oo ah nin Suudaani oo nala shaqeyn jiray oo asagana 2 sano ka hor shaqada ka tagay laakiin Umar wuxuu og yahay Cisaam inuu wali uu ka shaqeeyo wuxuu haystaa wali inuu ka shaqeeyo markas dadka ku soo muslimaan oo aniga aan ka shaqeyn jiray ayuu wuxuu haystaa inuu halkaas joogo markaas suurinay ninkan wuxuu u baahan yahay wax diinta u bandhiga Cisaam buu WhatsApp u diray Cisaam wuxuu ninkan diinta haloo sheego inuu isdilin rabaa haloo sheego in uu diinta Ilaahay soo galo oo badbaado oo Ilaahay waa kariim oo wax Cisaam buu WhatsApp u diray marka Cisaam xagee buu joogaa 2 sano shaqada kasii maqan yahay wuxuu la jiraa markaas Addis Ababa ayuu joogaa Cisaam fariinta markay u timid anuu ii soo diray aniga xaaladeyda markaas maxaa weeye anna waxaan ka mid ahaa dadkii koronaha shaqada ku waayay Cisaam war imaha inaan shaqada ka tagay laakiin wuxuu og yahay inaan markaas ka shaqeyn jiray ayuu og yahay wuxuu raadinayo ninkan diinta ha loo sheego inuu isdilin Ilaahay kariim raxmaan yahay ha loo sheego fariintiba anna waxaan u diray nin ka mid ah raggii saaxiibaday oo shaqada ku haray ayaan u diray oo Quraysh la oran jiray Quraysh Ilaahay amarkii isla markiiba fariintu waa furay numberkii ayuu ku dhuftay ninkii oo taagan bartii uu isku dili lahaa ayuu telefoon ugu dhuftay Chris xagee joogtaa markaasuu yiri halkaasaan joogaa isu kaay keen bir markaasuu adiga maxaa tahay yaa numberkayga ku siiyay Ilaahay baa soo diray bir ma Ilaahay baa ku soo diray waaba ninka oo himbu afka qabsaday wuxuu aniga halkaas ka shaqeeyaa markaas islaamka ka shaqeeyaa ay soo kaayeen wixii hore horta ku dhawaay dhismaha kugu dhagan ayaan saarnay meeshaan aan rabaa inaan isku dilo laakiin sida muuqato Ilaahay waa jecel yahay laakiin hadda kuma iimaan karo dilkina ina isdilina waan ka fikirayaa laakiin hadda kuma iimaan karo mandarkayga aad buu u qaab daran yahay marka aan Soomaali marka wuxuu yiri yarkay dib ma laha waxaad doontaba haw isu kaykeen 5 daqiiqo meeshuu ka soo dagay waa u yimid ninkii afku uu qabsaday fiq Ilaahay ma jecel yahay burani Ilaahay wuu jecel yahay marba hadii adigu ii soo kaadiray ninka arintii uu sheegay Ilaahay waa raxmaan buri dibkan waa laga baxaa inaad istiji wax ka xun diintu wada kala hadlay kutubu siiyay maalin labaad ba ninkii diintu galay inta kaga maharine wuxuu bilaabay inuu shirkadii la hadlo inuu xagga la hadlo intuu xagga la hadlo lacagtii ayuu ka leergareeyay ninka odiga Chris waa muslimay shaqo helay dilku waa ka badbaaday hooyadiis waa la daweeyay qisad ma sujud marka maxay tahay ninkan nin baari buu ah hooyadiis nin dadka la tacaamul ah درسي كلام مش كنت دوحة فر إلهي مركو رب إنك بدبادني عدوكو أديك سنة فيني عمر أني ميقانو عمر ميقان عسام من الشقة كتجي عسام ما أوجو أنا الشقة كتجي قريشي ما أوجو أنا ما أوجو مكان واتساب وصدر قريش إنه الشقة الجوجو ورم هاي قريش ورم هاي إنه نكان مال رب إنه سكدير ورم هاي قلت إلهي مركو قفكو بدبادني أسباب تأو استعمال أستجاي يقانو لكن إنا نقف ونكسر نقولنا وخير كنا اللي جوي يقانو وهدي خير كنا اللي جوي يقانو على اللي ورهبل ما أنت هل آدم وحكى له مرك عجيب هيد نكي ما أنتم مسلمين أبيسي هويدس
هوش قصة والله سعدان مركب خاصة أبيس أدب ولا سعداء أبيس دتك كندا وهاجروا واي كندا وآدي نين كان قريشي وانين سودانيسا أو هايستب دلاشة ودن كندا هل كانوا دقيقين لكن دور كي سنة مربو صفراء أو كندا تجا مركي ويلكو مسلم كبعد وكندا تجي ودقي أبيسها أيوة كندا إيمانية ويسوي مادين دينتو بندقي ومسلمي ويلكن ومسلمي هذا واحد من محمد إن شاء الله رجعنا أنت نسد من إنه مسلمته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.